in kastoo noloshiisu ay liidato in kastoo lagu tilmaamo qof aad uga hooseeya dhalinta asaagiisa ah in kastoo la yiraahdo waa mashaqayste ayatiinkiisa ku lumiyay in uu isticmaalo balwad iyo waqtiyada qaar oo ku lumiyo sheeko maalayacni ah oo noloshiisa aad dib ugu dhigtay haddaba ciladahaasi hadduu Shaafici leeyahay waxaana shaki ku jirin in uu ragga qaar dheer yahay tilmaamooyinkan ugu horeyn waa qof wadaninimadu ay ku dheer tahay qiimeeya Soomaalinimo isla markaana aad uga fog qabyaalada dhanka kalena waxa uu aad u tixgeliyaa una aaminsan yahay iftiinka bulshada haweenka Soomaaliyeed Shaafici deegaanka uu degan yahay dhammaan hablaha ku nool waxa uu ka dhigtay walaal marka laga reebo gabadha la yiraahdo Sagal oo noloshiisa aad wax uga bedeshay isla markaana u qaaday kalgacayl dhaba jacaylna u butaacay haddaba Shaafici Sagal waxa uu ku tilmaamaa astaamooyin marnaba aan la soo koobi karin marbuu yiraahdaa dayaxa ayay ka nuur badan tahay iyadoo kale ifka lagu arkaya aqal la galaya inay ayo wacan tahay tan ishaarta ay tahay inta ila taqaaniyo ummadahan ogeysiin waa astaanta Shaafici oo mar walba Sagal ku yiraahdo Sagal waa gabar aad u kaftan badan isla markaana bulshada Soomaaliyeed ee la deegaanka ah ay ku tilmaamaan qof su'aalo adag imtixaan badan isla markaana ragga ugu ciyaarta si aan marnaba la soo koobi karin waxay Shaafici mar walba hordhigi jirtay su'aalooyin aad u adag oo ay kamid tahay xujadii ugu ballaarneyd ee noloshiisa qalqal ku beertay oo ahayd in uu noqdo fanaan runtii Shaafici iyo fanaannimo aad ayay u kala fogeed balse maxaa dhacay qof walba jacayl hayo dadaal dheer ayuu sameeyay turbadiiba waxa uu go'aansaday Shaafici inuu si dhaba uga guul gaaro xujadii uga timid gacalisadiisa eraya aad u macaan iyo muusig aad moodo in loogu talagalay qisadiisa ayuu soo diyaarsaday dhalinyaro fara badan ayay goob isugu yeertay Sagal si ay u daawadaan imtixaanka foosha xun ee gudaha loo dhigay Shaafici iyo waliba sida uu uga baxsan doono hadduu ceeboobo xaafadda oo idil waxa uu ka noqonayaa qof aad u bartilmaameeda kuna fashilmay meel dad fara badan ay ku sugan yihiin hadduu ku guuleystana waxa uu noqonayaa qof ka guul gaaray jacaylkiisa waa sida Sagal ay hadalka u dhigayso waqtigu wuxuu gaadi socdo waxa la gaaray waqtigii balanta dhammaan dhalinyaradii way soo diyaar gareeyeen muusigistayaashiina waa lagu soo xaadiriyay goobta Shaaficina waa uu soo galay mikrofoonka ayaa la siiyay dadkoo idil dhagahooda waxay sugayaan dhawaqa afkiisa ka soo bixi doono waxa uuna ku heesay wadnaha suran tiicha xayl ku fidisayba fuli weyday wacadkii feeda bidix wadnaha suran tiicha xayl ku fidisayba fuli weyday wacadkii فعلات سميسا سمر با في عني فعلات سميسا سمر با في عن هفكني نفعيشو هفكني نفعيشو inta ha inoo joogto sheekadii gaabnayd oo aan ugu magac darnay xubbigu xujo ma galo waxaan aad kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga aad siisay dhageysiga sheekadani inta aynu sheeko kan lamida ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelyo fikiriyo naftayday filawaagan igu dhacay fiktuba looyde